Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ku wareejiyay 150 kun oo dollar oo lagu horumarinayo garoonka kubadda cagta ee Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo. Garoonka ciyaaraha ee Dr. Ayub ee casriyeynta lagu sameynayo ayaa ka qayb qaadanaya isdhexgalka bulshada, horumarinta ciyaaraha, soo saarista dhalinyaro leh xirfad ciyaareed oo wanaagsan oo qaranka ku matala tartamada caalamiga iyo kuwa gobolka. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa bahda isboortiga ku booqday garoonka Dr. Ayub halkaas oo kula kulmay dhalinyaro badan oo ku faraxsan kaalinta Ra'iisul Wasaare Khayre uu ka qaadanayo horumarinta ciyaaraha dalka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Wasiirka ciyaaraha ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Dhuux ayaa Ra'iisul Wasaaraha uga mahadceliyay taageerada dhaqaale uga qayb qaadanayo qorshaha horumarinta garoonka ciyaaraha ee magaalada Baydhabo. Ra'iisul Wasaare waa mahadsantahay. maanta waxaan dhex taaganahay garoonka Dr. Ayub ee degmada Baydhabo. waxaan xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka kala wareegnay lacag dhan 150 kun oo dollarka Mareykanka ah oo lagu dhisi doono laguna horumarin doono garoonka Dr. Ayub. Mudane Ra'iisul Wasaare waa mahadsantahay. Thank you very much. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo maalin isagoo kula hadlaya garoonka kumanaan ka tirsan bulshada Baydhabo ayaa ballan qaaday in la horumarinayo garoonka si dhalinyaradu ay helaan fursad ay ku horumariyaan xirfadooda ciyaareed, iyadoo ay xusid mudan tahay Ra'iisul Wasaare Khayre uu horay sidan oo kale garoomo ku yaala dowlad goboleedka Galmudug ugu deeqay dhaqaale lagu dhisayo garoomada ku yaala magaalooyinkaasi. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Baydhabo.